soo qaad wanaag saaxiibayaal, waxaan rajaynayaa inaad caafimaad ku soonteen kuna afurteen. waxaan maanta ka hadlayaa farsamo muhiima oo ay u baahan yihiin ama ay u baahan karaan dadka isticmaala taleefanada androidka ah. dabcan marka aad internet isticmaalayso, inta badan dadna waxay isticmaalaan wifi ama ay u badan yihiin, dadna waxay u badan yihiin oo ay internet ka adeegsadaan daatada simkaarkooda. sidaa darteed waxaa rabaa inaan muuqaalka kugu soo bandhigo ama aan kugu tusiyo farsamo yar oonan wax application u baahnayn oo aad ku xadidi karto ama aad kaga xanibi karto applicationada qaar inay internetka telefoonkaaga ama wifi-ga access gareeyaan, ama aad iska xanibi karta markaad u baahan tahay. si kale aan u iraahdo, marar qaar waxaa laga yaabaa in Facebook uu aad kuu mashquuliyo ama TikTok uu aad kuu mashquuliyo. mararkaa kale waxaad samayn kartaa in aad internetka ka xanibto applicationka aadka kuu mashquulinaya. marka farsamada ayaa rabaa inaan muuqaalkan kugu soo bandhigo. marka ila soco, ila dhamayso, ilana gaar ilaa qaybta ugu dambaysa intaa kaa gacan hatin doono muuqaalka. haddii aad doonto in mid ka mid a applicationada telefoonkaaga ku jira aad ka xanibto internetka, telefoonkaagana uu dabcan yahay Android, gaar ahaan vershanadii ugu dambeeyey ee Android versionka aad isticmaalayso, waxaad samaynaysaa si aad applicationada qaar uga xanibto internetka, hadday wifi noqoto iyo hadday data noqotaba. waxaad keliya marka hore soo galaysaa qaybta settingska ee telefoonkaaga, kadibna halkan connections, kadibna halkan data usage, kadibna halkan aad soo gasho meesha ay ku qoran tahay allowed networks for apps. halkan marka waxaa soo gelaya dhammaan applicationada ku jira telefoonkaaga. waxaad samayn kartaa marka applicationka aad doonto ayaad ka xanibaysaa internetka. tusaale ahaan hadda fiiri, Instagramka oo kale ayaan joogaa. haddii aan doono Instagramka inaan internetka u wada fasaxo, waxaan dooranayaa mobile data oo wifi, labadaba ay ku shaqayn doonaan mid kasar markaan doorto. haddii kan dhexe aan doorto wifi only, Instagram waxa uu shaqayn doonaa keliya marka aan wifi isticmaalayo. sidoo kale haddii aan halkan ka xusho mobile data only, Instagram waxa uu ku shaqayn doonaa datada oo keliya, wifi kuma shaqayn doono. haddii marka farsamadan ay kugu cusub tahay, waa rajaynayaa inaad la wadaagi doonto guud ahaan asxaabtaada, qaybta hoosena aad ugu yeeri doonto saaxiibo gaara. anigoo kaa imaad cilina waqtiga qiimiga badan ku dhexsay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka mid ah asxaabta M252, maxaad ka qabdan inagu soo biirto? 100,000 qof ayaa ku soo dhaweyn lahayn dabcan oon anigu horreeyay. inta laga gaarayo muuqaalka xiiba idankii, halkan waa M252.